السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة جنالك كنعيل اوفيشيال ميل كستو اجوكتان maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo taariikhda xidiga Lionel Andres Messi waa taqaaniin waa ciyaaryahan aad iyo aad u xirfad badan kubadda cagta wax badan laga yaqaano marka kusoo dhawaada fadlan muuqaalka subscribe noo saara sheerta like-tana naga hilmaamina oo nagu dhiirigeliya Lionel Andres Messi oo sidoo kale loo yaqaano Leo Messi waa mid ka mid ah ciyaartooyda kubadda cagta ugu fiican taariikhda waxa uu dhashay 24 Juun 1987 waxa uu ku dhashay magaalada Rosario ee dalka Argentine waa xidig ku guuleystay koobab badan oo heer qaran ah iyo heer kooxeed sida aan wada ognahay caruurnimadiisii iyo bilowgiisii kubadda cagta Messi waxaan ka baran karnaa inuu ahaa qoys iska dhexdhexaad ah hooyadiis Salia Maria Coutinho oo ahayd shaqaale warshadeed iyo aabihiis Jorge Messi oo ahaa la taliye dhanka biraha waxa uu bilaabay in uu kubadda cagta ciyaaro isaga oo da'yar ah isaga oo markaas jiray 6 sano ayuu waxa uu ku biiray magaalada Rosario naadi ka tirsan taas oo lagu magacaabo Grandoli Club halkaas uu aabihiis macallin ka ahaa sanadkii 1995 Messi waxa uu ku biiray kooxda Newell's Old Boys halkaas oo xirfadiisii ciyaaraha si weyn loo aqoonsaday caafimaadkiisii iyo hijrada Barcelona waxaa lagu arkay in uu qabo caafimaad oo dhanka kobaca jirka isaga oo 12 jir ah sanadkii 2000 Messi iyo qoyskiisii waxa ay FC Barcelona ay u ogolaatay in ay bixiso qandaraaska daaweyntiisa waxa uu ku biiray akaademiyada Barcelona ee La Masia isaga oo 13 jir ah halkaas oo xirfadiisii sare ugu qaaday Messi waxa uu ciyaarihiisii ugu horeeyay ee kooxda koowaad ee Barcelona u ciyaaray waa sanadkii 2004 isaga oo markaas jiray 17 sano waxa uu ku guuleystay koob aad iyo aad u fara badan oo hadda waqti xaadirkan aan wada ognahay 10 La Liga ayuu ku guuleystay Messi intuu Barcelona u joogay iyo 7 Copa del Rey 4 Champions League ayuu la guuleystay Messi waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee Barcelona iyo horyaalka La Liga sida aan wada ognahay tuu joogay Barcelona Messi waxa uu ku guuleystay 6 jeer oo Ballon d'Or halka markii uu u hijrooday Paris Saint-Germain sanadkii 2021 Messi waxa uu ka tagay Barcelona kadib dhibaato dhaqaale ah oo kooxda soo food saartay waxa uu ku biiray kooxda Paris Saint-Germain isaga oo heshiis 2 sano ah u saxiixay kadib dhaqaale Barcelona soo food saartay awgeed uu tagay Barcelona waxa uu la qaaday Paris Saint-Germain hal horyaal oo isaga Ligue 1 dalkaasi Faransa ayuu la qaaday isaga oo markaasi todobaystay Ballon d'Orkiisii 7aad oo soo qaaday kadib Messi koobkii adduunka ee 2022 lagu qabtay dalka Qatar isaga oo hogaaminayay xulkiisii kuna guuleystay abaalmarinta laacibka ugu fiican ee tartanka loo yaqaan Golden Ball ayuu ku guuleystay Messi kadib 2023 isaga oo waxa uu ku biiray naadiga Inter Miami ee dalkaasi Mareykanka ee MLS-ka halkaas oo isla markiiba saameyn weyn ku yeeshay horyaalka iyo abaalmarino shakhsiyadeed uu ku guuleystay Messi waxa uu waqti xaadirkaasi noqday Ballon d'Or waxa uu qaaday oo ku guuleystay Ballon d'Orkiisii 8aad Messi sanadaha Ballon d'Orka uu ku guuleystay waxa uu ka qaaday sanadkii koowaad ee Messi uu ku guuleysanayay abaalmarinta Ballon d'Or waxa uu ka qaaday Xavi Hernandez iyo Cristiano Ronaldo 2009 2010 Messi waxa uu Ballon d'Orka ka qaaday Andres Iniesta sida aan wada ognahay oo markaasi ku soo guuleystay iyo Xavi Hernandez oo markaasi ku soo wada guuleystay Spain 2010 xulka qaranka Spain oo ku soo guuleystay Kooba Adduunka
ayuu ka qaaday isla wada Barcelona wada ahaayeen. 2011 Messi waxa uu ka qaaday Cristiano Ronaldo iyo Xavi Hernandez. markaas Cristiano Ronaldo asigana wax qabad fiican soo muujiyay ayuu ka qaaday 2000 waa 3 sano oo xiriir 4 sano oo xiriir 2012 xitaa waxa uu ka qaaday Cristiano Ronaldo. kadib 2015 waxaa laga soo dhaxgashtay 2013 2014 laga soo dhaxgalay waxa ka soo dhaxgalay Ronaldo ayaa ka qaaday. kadib 2015 ayuu haddana waxa uu ka qaaday Cristiano Ronaldo iyo Neymar Jr oo isla Barcelona wada ahaayeen. kadib 2019 ayuu haddana waxa uu ku guuleystay kiisii lixaad waxa uuna ka qaaday ciyaaryahanka Virgil van Dijk oo markaasi kusoo guuleystay Champions League. iyo Cristiano Ronaldo ayuu ka qaaday 2021 sida aan wada ognahay waxa uu la qaaday Paris Saint-Germain koobkaasi ee Ligue 1 France ayuu la qaaday. kadibna waxa uu kusoo guuleystay Copa America ayuu kusoo guuleystay waxa uu markaasi sidaa ku garaacay Roberto Lewandowski oo ahaa markaasi koob badan oo kusoo guuleystay markaas loo saadaalinay sanadkaas. iyo Jorginho oo markaasi Chelsea ahaa oo Chelsea markaasi la soo qaaday Champions League. 2023 Inter Miami isaga oo jooga ayuu haddana waxa uu ka qaaday sida aan wada ognahay waxa uu kusoo guuleystay Mondiyaalka Koobka Adduunka ee lagu qabtay dalka Qatar. kadib Erling Haaland oo Real soo qaaday ayuu haddana ka qaaday. waa tahay asxaabta aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin marka fadlan subscribe-ka noo saara. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.